kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena saddexaad waa barnaamijkii habeennimo. haddaba barnaamijkeena habeennimo waxaynu kusoo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay intaynu kala maqnayn. ugu horeyn waxaynu ka bilaabaynaa warbixin cajiib ah oo aad markaa loo hadalhayo saacadihii lasoo dhaafay. haddaba saa la socoteen aas qaran ayay wadaa Iiraan. maalin kasta mas-uul hadla wuxuu yidhaahdaa inaan loo aargudin ma dhacayso aayatullaahi. dadkii ka dambeeyay dilkiisa wallaysa iyaguna ka dambaynayn oo aysan noolaanaynaa le. hadday tahay taliyaasha ciidamada waxaa ugu dambaysa maanta afhayeenka xukuumadda gabadha ah. marka meeshaa maxalka waxaa ka cadaan leeyahay dhanka militariga iyo siyaasadaba waxay cadaysay Iiraan inay u aargudi doonto aayatullaahiga la aasayo oo aas qaran loo sameynayo oo ay dileen Netanyahu iyo Trump sida iyagu ay leeyihiin. warbaahintii marka Israa'iil ayaa warkii Iiraan ee lagu celcelinayay maalmihii la soo dhaafay ayay ka hadleen. waxay yiraahdeen waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah Iiraan waxay ku hanjabtay dadkii ka dambeeyay dilkii aayatullaahiga si dabiici ah uma dhiman doonaan. si dabiici ah maxay qofka caadi inuu isaga dhinto uma dhiman doonaan. maxaa dhici doonaa? maxaa lagu samayn doonaa? ma la gubi doonaa? ma la sumayn doonaa? maxaa lagu samayn doonaa? walwal. markaasa waxaa leeyahay yaa loo dan leeyahay. qaar waxay leeyihiin Netanyahu iyo Trump waa ognahay yaa kaloo soo raaci kara. abaanduulaha ciidankama ku jira yaa kaloo ku jira. cabsida ka taagan caawa gudaha Israa'iil waa yaabay. ninkii Trump ahaa isaguna waxaa leeyahay dhigtaa u taagan. Iiraan way hanjabaysaa maalin kasta. dadkii ka dambeeya odagaan dilkiisa si dabiici ah uma dhiman doonaan. wallay iska tahay si dabiici ah inaysan u dhimanaynaa la leeyahay. si dabiici ah si caadi ah uma dhiman doonaan. qaab kale u dhiman doonaan. qaabkii marka lagu wareero ma la dili doonaa? maxaa la samayn doonaa? haddaba markaan idin soo wararkii ugu waaweynaa caawa sheekada laga qoray wargeyska la yiraahdo Ra'yul Yawm ayaa wuxuu soo xiganayaa wuxuu leeyahay warbaahinta Israa'iil ayaa caawa aad uga hadlaysa hanjabaadaha isa soo taraya ee Iiraan ka imanaya taasoo ku saabsan in loo aargudi doono dhiigii Khamenei in la aargudi doono kuwii dilka ka dambeeyana inaysan dhiman doonin mawt dabiici ah. macnaha mawt dabiici ah kuwaas ma u dhiman doonaa walle ka tahay. macnaha qofka inuu caadi isaga dhintaa suuragal maahan leeyahay. thariga waa loo samaynayaa aargudasho waxaa loo samaynayaa cajiibay taagi. marka sheekadaasu marka way cusub tahay. walwalkii iyo walbahaarkii ayaa ku batay. marka nin kastoo is ogaa inuu ka dambeeyay dilka aayatullaahiga caawa meeluu ku hoyduulay. nimanka Iiraan niman caadi baa waxyaabaha la yaab kale warbaahinta soo qaadaysa waxaa kamid ah si dabiici ah uma dhiman doonaan. maxay ku samayn doonaan? marka maxaa dhici doona? waa taasaa taagan. qodobka halkaasee kaga gudbaynaa. qodobka labaad ee caawa barnaamijkaanu kusoo qaadanayno maalinta talaadada ah haddii alla idmo waxaa ka furmi doonaa shir 2 maalmood soconaya oo Ankara shirka madaxda NATO. shir madaxeedka NATO ayaa magaalada Ankara caasimada Turkiga ka dhici doona. Trump iyo kooxdiisu waxay kusoo dareen ajandaha Hormuz inay NATO ka hadasho. dowladda marka waxaa jira dhahaya Hormuz muhiim u nooy haddii ciidanna looga baahdo NATO annagoo ah in xoog loo furo diyaaradahay waa ka qayb qaadanaynaa si ay markaa Mareykanka naxariis ugu tusaan oo macnaha inay la jiraan u tusaan. haddaba marka shirkaas iyo NATO iyo arrimaha Hormuz ayaa laga hadlayaa. haddaba aan idin tuso telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay malafka ama qorshaha marinbiyoodka Hormuz ayaa la soo saari doonaa miiska wada hadallada shir madaxeedka NATO ee ka dhici doona Ankara
mas-uul maraykana oo weyn ayaa sheegay in arrinka marinbiyoodka Hormuz iyo in la ilaaliyo maraakiibta halkaa isaga gooshaysa badda inay markaa ka mid noqon doonaan qodobada ugu waaweyn ee madaxda gaashaanbuurta NATO ay falanqayn doonaan. dowlado dhowra ayuu sheegay ninka Mareykanka oo xulafada NATO ka tirsan inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan iyagoo soo bandhigaya awoodooda in markaa marinbiyoodka Hormuz si nabadgelyo ah lagu maro. marka maxay leeyihiin arrinkaas taagan miiska wada hadalka Mareykanka soo saareen Hormuz in la furaal rabaa Iran maartay in meesha laga wareejiyo hadii wada hadaladu fashilmaan diyaar ma tihiin waay. NATO marka dowlado badan oo leeyahay ninkan Mareykanka warka soo tibinaya ayaa diyaar ah inay hawsha ka qayb qaataan. marka Mareykanka marka meesha waxa ka muuqata leeyahay tabardaridu maxay tahay Mareykan kaligiis waxba waa ka qaadi waayay Iran. marka hadda wuxuu rabaa NATO inuu soo wado oo hadii heshiiskan burburo NATO inuu u isticmaalo Iran. waa tii dowlado badan oo NATO arrinka ay diidan yihiin. Turkiga kamida, Ingiriiska kamida, Faransiiska kamida waxay leeyihiin waay annaga hal dowlad way u isugu tagaynaa NATO annaga maxaa dhacay. marka hadda marmarsiyo roo inuu sameeyo wadadana la furaa maraakiibta ayaan ilaalinaynaa. marka maraakiibtan iyo wadadan furideeda iyo Iran iyada soo galaysa marka sheekadaas ayaduna la qorsheynaya Ankara inay ka bilaabato sida marka ay isugu raaci doonaan madaxda NATO iyo in kale lama yaqaano. haddaba markii sheekooyinkaas ay soo baxeen waxa isaguna hadlay ninka la yiraahdo Qalibaf madaxa wada xaajoodka isla markaana ah gudoomiyaha baarlamaanka Iran. haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay ee arrinka laga qoray nabad ma jirto dhahay annaga iyo Washington mana aqoonsan doono Israa'iil. afhayeenka baarlamaanka Iran Mohammed Baqir Qalibaf wadada diblomaasiyadeed waa inay awood u yeelataa ayuu yiri inay xoojiso guulaha la gaarayo dhulka. hirgelinta isfahamka Mareykanka waa mid adag laakiin waa suurtagal. waxay Washington sheegtay baahida loo qabo in lagu daro ilaalinta sharafta dhuleed ee dalalka gobolka iyo in la soo afjaro dagaalka xulafadeena iyaguna qaybta ka yihiin. haddaba Qalibaf wuxuu sheegay Mareykanku waa xisbi aan la isku haleyn karin sidaas daraadeedna waxaan ka dignay in markaa layn cas lagu xadgudbo. arinta jabhadda iska caabinta Lubnaan ee Xisbullah waa mid kamid ah qadadkeena cas hadii la dhibaateeyana aan waxba heshiisa la gaari karin kama aanan laaban doono dalabkeena isaga ah heshiiska isfahamka in la joojiyo dagaalka xulafadeena lagu hayo jabhadaha gaar ahaan jabhadda wax iska caabinta Xisbullah ee Lubnaan ka dagaalamaysa. ninka marka wuxuu taagan yahay annagu layn casay noo tahay Xisbullah iyo jabhadeena lama taaban karo awlaadeena wax la hadli karo male heshiis kasto aan galeynana qayb ka tahay marka qaybtan ka taga qaybtan ma yeeleen marka nimankan waa naqaana niman nabadu ka soo socota ma aha Washington annaguna Israa'iil weligiin ma aqoonsaneen dagaalkaas xabadaas aan maartay isku astaysiinayna. marka ninka isaguna warkaas ayuu soo saaray kale xiisaha leh caawa soo baxay wuxuu leeyahay gabar wasiirka gaadiidka Israa'iil ah ayaa sir ka shiftay. waxay tiri Imaaraadka iyo annaga waa iskaashanayna dagaalkii Iran gantaalii Iran waa iska kaashanayn. Imaaraadkana wuu nacaawinayay annaguna waxaan u geynay gantaalaha looga hortago ilaa qubba xadiidiya alaabtaas ina Imaaraad waa saaxiib fiican. Imaaraadka waxay ku diraysaa Iran oo awalba ninkan ugu kutubaysay booca ugu kutubaysay ayay haddana waxay sii xaqiijisay baad in wax la qariyaa aysan jirin oo Imaaraad Israa'iil uu qayb ka yahay Israa'iilna Imaaraad qayb ka tahay macnaha waa saas. waa iskaashanaynay waxa iska kaashanaynay nimankan Iraaniyiinta. haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay
waa markii ugu horeysay si rasmiya loo cadeeyo in Israa'iil ay dirtay gantaalaha la yiraahdo qubba xadiidiya oo imaaraadka ay u dirtay. wasiirka gaadiidka gabadha ah ee Israa'iil waxay sheegtay Abu Dhabi waxay naga saaciday inaynu ka hortagno sawaariiqda Iiraan. haddaba warbixintu way sii socotay waxaa leeyahay warbaahinta Israa'iil ayaa sheegaysa caawa mas-uul Israa'iiliya markii ugu horeysay inuu cadeeyay in imaaraadka iyo Israa'iil ay markaa iska kaashadeen dagaalka Iiraan oo markaa hanaanka la yiraahdo difaaca hawada ee la yiraahdo al-qubbatul xadiidiya ay markaa Israa'iil ay u dirtay dhulka imaaraadka. gabadha wasiirka gaadiidka xukuumadda Israa'iil ah oo la yiraahdo Mary Raghif ayaa sheegtay in sawaariiqda balastiga ah markaasi ay iska kaashadeen sidii looga hortagi lahaa iyaga iyo imaaraadkuna arrinta ay ka caawiyeen. haddaba jaraa'idka Macaarif ayaa laga soo xiganayaa warbixinadan. marka waxaa leeyahay sheeko marka hore la ogaayay laakiin xogaa iska daboolan. nimanka marka yuhuudda waxba ma qariyaan, banaanka keenaya wax kasta. marka warbaahintooda ayaana arrinkaa ka hadashay. wararkaas ayaa ugu waaweynaa warbixinadii soo kordhay asxaabay. barnaamijkuna wuxuu ahaa kii saddexaad ee maanta axadaan idiin soo gudbinaynay. laagareey oo sheergareey barnaamijka inta aan mar kale kulmayno barnaamijka lamida meel kastoo aad joogtaan asxaabay. nabadgelyo.